السلام عليكم أخيارتها هودا نغلا socoto dhamaantiin waan idin salaanay waanta waxaan wadnaa video cusub baan wadaa oo ku saabsan videogii hore ee jawaabaha ahaa hadaad soo aragtay qaybtiisii labaad waaye oo tan waa jawaab su'aalaan soo duubaynaa jawaabahoodan kusoo xijinaynaa tan waa jawaabihii iyo dadku si uga falceliyeen inta qof ee sheegtay iyo si uga soo jawaabeen wiilka koowaad wiilkaas wuxuu yiri su'aasha koowaad buu yiri eedada tusaalaha loo soo qaatay way dhimatay dumaasheeda yaas kale su'aashuna waxay ahayd eedada haday dhimato dumaasheeda yaas kale wiilka su'aasha wuxuu dhahay eedada way dhimatay maxay dumaal leedahay waa sax maasha Allah su'aasha labaad buu soo qoray hadana wuxuu yiri gaariga waxaa istaajiyay qofkii waday exactly taasna wuu saxay saddexaad buu yiri kulligood way saxan yihiin laakiin waxaa dhulka iska leh ninka waraqaha watay su'aasha yiri Dr. Maxamed Deer brother waraqaha maxaa ku qoran ninka watay waraqa baan dhahay ninka watay ma sheegin waraqa waxa ku qornayd xisaab ku xisaabsanaya cashar kale ku qaadaynaya anigu lahaaya ma ku sheegin anigu macnihii waxa ku qoran waraaqda su'aashaas hada kugu dhaaftay insha Allah qof kale ka faa'iideystay waa su'aashaas leh waxaan dhihi karaa su'aasha afraad wuxuu yiri waxaan aqaanaa caynkii laakiin kuwa kale ma garanayo su'aashana hal xabo ka sheegay laakiin san u soo qoray kamuusan sheegin wiilkaas saasuu u soo hadlay wiilka labaad qofka labaad su'aashan isaguna saan oo kale uga jawaabay kow yiri eedada way dhimatay Allah u naxariisto Allah ya raxma way dhimatay waa sax su'aasha labaad wuxuu yiri waxaa joojiyay ninkii gaariga waday su'aashaasna wuu saxay su'aasha saddexaad buu yiraahdaa wuxuu yiri waxaa la dhahaa dhaqanka xagga awrta waa dabagelis cayn iyo bayd saddexda xarig buu sheegay dabagelis cayn iyo bayd su'aalka shafraad buu yiri su'aasha afraad wuxuu yiri waxaan fiirinayaa warqadaha waxay yihiin hadii doonaan waa Cabdilaahi Shideeye uu yiri wuxuu yiri mid saddexdaba uu yiri wax sharci oo cad kuma doodayaan laakiin uu yiri waxaan u raadinayaa cadayn iyo makhraati laakiin hadda sharci ma haystaan wax oo sharci cad nin wato yiri sharcigaas aan u haystaa ma jiro ama makhraati ahaado ama cadayn kala ahaato su'aashaasina saas sax ku tahay wiilkan afarta su'aalood buu ka jawaabay waxaa ku qoran Cabdifatax Aadan afarta su'aalood bas si uga jawaabay aad buu mahadsan yahay wiilkan kale isaguna ay ugu qoran tahay Axmed Karshaale wuxuu yiri su'aasha koowaad waa cidima leh waayo way dhimatay sax su'aasha labaad wuxuu yiri gaariga qofkii waday baa istaajiyay su'aasha saddexaad wuxuu yiri su'aasha saddexaad waa ninkii warqada wata baa leh sharci ahaan ninka warqada wata suu ku leeyahay warqada maxaa ku qoran taafraad wuxuu yiri waa cayn bayd iyo dabagelis saddex su'aalood buu saxay hal su'aal buu ku raftay aad buu mahadsan wiilka ay ugu qoran tahay Axmed Karshaale saddex su'aalood waliba si farshaxan uu soo qoray maasha Allah saddex su'aalood buu soo sheegay mid kale waxaan rajaynayaa hadda aad ka faa'iideysatay wiilkii Cabdifatax ugu qornayd wiilkana sidan uu yiri waa in kanfan loo xiraa de way dhimatay bakooda waa in kanfan loo xiraa de adiga wada istaajiyay su'aasha labaadna yiri waa in kanfan loo xiraa way dhimatay wati koowaad yiri talabaadna wuxuu yiri de adiga waday baa istaajiyay inta ma garanayaa yiri labada kale waxaan rajaynayaa inaad hadda faa'iideysatay oo dhalinyaro sheegtay baa jirta afar su'aaloodba waan sheegay intaas aan rabay inaan dadka jawaabay aan soo qaato intii kale aan ka tagayna iga raali leeyahay insha Allah kuwa dambe soo qaadan doonaa waxaan fiirinayaa bal dadka kale iyaguna si kaga jawaabeen gabadhan ay ugu qoran tahay Nasra Mawdo waxay tiri commentigan akhriyay haddaan sheego ka warrama commentiga akhriday soo sheegay rag baa soo sheegay wiilkan Cabdifatax isna ugu qoran tahay sidoo kale wuxuu dhahay warkaas war weyn waa brother hadii ka weyn yihiin aadan hore u aqoon wax kasta lagu dhashay hadda baro oo hadda ka faa'iideyso Cabdifatax Aadan wiilkii ugu qoran tahay Cabdifatax kale ugu qoran gabadhan kale waxay tiri ayaan carab ugu qoran tahay hal jawaab ma hayo laakiin waan faa'iideysanaya waad mahadsan tahay walaal ka faa'iideyso wiilkan waxa ugu qoran Cornel Cabdi wuxuu dhahay
wuu qoslay kakakaka ma aqaan reer baadiyaha yaqaana ani awr ma rarin laakiin waxaan u malaynayaa xarkuhu inay badan yihiin xarkuhu way badan yihiin laakiin saddexda xadhiga ugu muhiimka ahayd waa saddexda xadhig ee lagu sheegay caynka iyo bayda iyo dabageliska waa xarka badan baa jira oo hoggaanku ka mid yahay insha allah waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaystay video dambe waa soo duubi doonaa insha allah oo jawaabo ah isku diyaariya saad uga jawaabi lahaydeen insha allah waa soo wadnaa ha sugi waayina laakiin kan klibka markaan soo gelino klibka ku xigaana waa idin kasoo dhiganaa su'aalo kale waad mahadsantihiin fadlan subscribe like share comment garabkiina allaha galo waa mahadsantihiin soo socono